سر سرانجو بدح مدك جيسو ميسك راسك عند السر وأقول أنا يا بقى عيناهي إن ضاعت ونغرو dalka dadka iyo diinta inaan u hoggaansanaado dhammaan xeerarka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xeerarka kale ee dalka u dejisan inaan u fuliyo amarada madaxda hakasho la'aan inaan heegan iyo gaashaan u noqdo difaaca iyo horumarinta qaranka Soomaaliyeed inaan ku dhaqmo sharaf dhiiranaan edeb waqtiga nabadeed iyo waqtiga colaadeedba in aan xafido wax allaale wixii si ciidan ah inaan waxba una kala harin dadaal iyo karti sidaan uga dhoori lahaa baylahda dayaca hubka qalabka iyo alaabooyinka kale ee la igu aaminay تورو بدح مدك جيسو سر سرانجو دو جيسو بدح مدك راح macluumaadkana lagu baraya kulliyaddan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu noo noqon doonaa hagaha inta aan ku guda jirno waajibaadkan Somali Harp Okulu ve Assubay Okulu Eğitim Öğretim Yılı açılış ve ant içme törenine hoş geldiniz. Bu anlamlı günde törenimize teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve personelim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. kusoo dhawaada munaasabadda furitaanka sana dugsiyeedka tababarka waxbarashada kulliyadda Leyli Saraakiisha iyo Leyli Saraakiil xigeenada ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhaarintooda maalintan qiimaha leh maadaama aad nagu soo sharafteen ka soo qaybgalkiina munaasabadan anoo ku hadlaya magacayga iyo kan howlwadeenka waxaan idin haynaa ixtiraam iyo mahadnaq. Sayın Savunma Bakanı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Somali Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğini şekillendirecek subay ve astsubayları yetiştirmek üzere waxaan aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkan munaasabaddan furitaanka sanadka cusub 2022 ee waxbarasho ee saraakiisha iyo Leyli Saraakiisha. dowladda Turkiga shacabka Turkiga aad baan ugu mahadcelinaynaa wax la taaban karo oo muuqda ayay had iyo jeer ay noo qabtaan oo na tusaan saaxiibo ma aha waa dad walaala ah oo meel soke inooga yaal weeye kuma tilmaami karno inay yihiin dad saaxiiba kaliya.
inaan xafladan quruxda badan aan u xirno leyli saraakiil xigeenno oo maanta wixii ka dambeeyay ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii farxad weyn inoo tahay xaqiiqdii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wiilasha geesiyaasha u diyaar garoobay in ay ku soo biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u adeegaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda xaqiiqdii ma la soo koobi karo dowladda saaxiibada nahay ee Turki ee dadaalka ay bixinayaan waxaan rabaa inaan mahadceliyo madaxweyneena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah taliyaha ciidamada guud ciidamada qalabka sida oo runtii ka go'an inuu ciidamada qalabka sida uu dib u dhismo taasoo astaan u tahay muddada hadda uu joogo isbeddelka xoogga leh guud ahaan ciidanka qalabka sida uu gaaray gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay madaxweyne waa mahadsan tahay farxad weyn ay noo tahay xaqiiqdii ka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliskeeda inay guulaan ay gaaraan Somali ordusu baş yüksekte, vücut dik, gözler mağrur. Waxaa soo gudaya kuwii taariikhda qori lahaa